أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waa sabti bisha rajab ay tahay 25,443 hijrada una dhigantaa 26 febraayo 2022 miilaadiga. waxaana joogaa maka almukarama. ilaahay wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ah oo kariimka ah ku soo dejiyey aayado badan oo haweenka ka hadlaya oo ku saabsan. nabi maxamedna sala allahu calayhi wacala alihi wasalam axaadiis badan ayaa laga wariyey uu gabdhaha uga hadlahayo. maantana waxaan ka hadlahayaa hal xadiis oo nebiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam laga wariyey oo ku saabsan haweenka. شريف محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي الكتاني oo noolaa inta u dhaxaysay 1305 ilaa 1382 hijrada una dhigantaa 1888 ilaa 1962 miilaadiga ah. wuxuu alifay kitaabka weyn oo la yiraahdo nidaamu alxukuumati الnabawiya almusama الtaraatiib alidaariya. wuxuuna boggiisa 677 ku yiri: almar'atu tumathilu الniswata fi اlmajlisi الnabawi ama tamthalu النسوة في المجلس النبوي. في ترجمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية من الاستبصار روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين يقولن بقولي وعلى مثل رأيي إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت وموضع شهوات الرجال وحاملات أولادكم وأن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أن نشارككم في الأجر يا رسول الله. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه إلى أصحابه وقال لهم: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكم لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته تعدل كل ما ذكرت. فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب وعلى هامش الإصابة لابن حجر دون إسناد ولم يعزه لأحد. حديثك معنه سوحاوي سيرة أسماء بنت يزيد
bin asakan alansaariya wuxuu kitaabka alistibsaaru ayada ka wariyey inay u timid nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ayna tiri mowduucuna waa haweenta ka wakiilka ah dumarka oo u timid majliska nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam almar'atu tumathilu anniswata fi lmajlis annabowi waxayna tiri anigu waxaan ahay rasuulka waa ergeygee inta haween ah oo isoo dirsatay oo ah jamaacada haweenka muslimiinta waxaan anigu leeyahay ayay waafaqsan yihiin oo ay ayaguna leeyihiin taladayduna ay taladooda tahay marka ilaahay wuxuu adiga kuu soo diray ragga iyo haweenkaba markaasaan haddaan haweenka nahay ku rumaynay aanna ku raacnay annagu haddaan haweenka nahayna guryaha ayaan ku egnahay oo kama soo baxno ragguna annagu shahwaadkooda nagu gutaa aanna carruurtiinnana caloosheenna ku qaadnaa raggana waxaa la siiyey oo aan dumarka la siinin waa salaada jamaacada lagu tukado iyo ka qaybgalka janaasadaha meydka lagu tukado markay jihaadka u baxaanna waxaan u ilaalinaa maalkooda carruurtoodana waa u korinaa marka annagu ma idinla leenahay ajarka aad intaasoo idil ku helaysaan rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi wala alih wasalam markaasuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalih wasalam uu xagga wejigiisa asxaabtiisa ula soo jeestay uuna ku yidhi miyaad hore u maqasheen hadalka iyo su-aasha ay haweentaani ka tiri diinteeda oo ka fiican hadalka iyo su-aalaha midaan iyo su-aasha midaan markaasay waxay yidhaahdeen maya rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi wala aalihi wasalam markaasuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wala alih wasalam wuxuu asmaa ku yidhi asmaa ey iska tag haweenkaad ka soo tagtayna waxaad ku tiraahdaa inay wanaajinta middiin walba ay dhaqidda ninkeeda wanaajiso ayna ku dadaasho raadinta raalligelintiisa ayna raacdo wuxuu isagu doonayo waxay u dhigmaan intaad ragga ka sheegtay oo kale waana intay warkeeda hore ka sheegtay oo ku jirta markaasay asmaa'u gaddoontay iyadoo laa ilaaha ila allaahu iyo allahu akbar leh ayadoo ku bishaaraysatay oo ku faraxday wuxuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam ayada ku yiri xadiidka waxaa wariyey ibnu cabdulbar kuna wariyey kitaabkiisa al-isticaabu kitaabka al-isaaba ee ibnu xajar al-casqalaanina wuxuu ku wariyey haamishkiisa isagoo aan cid kaloo cid warisay magacaabin iyo silsiladda warisay toona marka haweenku aad iyo aad ayay u yaqaanaan kuwa soomaalida gaar ahaan diintooda xadiidkan weynna ha ka faa'iidaystaan allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacala aali sayidina maxamedin kama sallayta calaa sayidina ibraahiima wacala aali sayidina ibraahiima wabaarik calaa sayidina maxamedin wacala aali sayidina maxamedin kama baarakta calaa sayidina ibraahiima wacala aali sayidina ibraahiima fi lcaalamiina inaka xamiidun مجيد وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
hana la iska jiro waxay gaaladu ka leeyihiin haweenka oo haweenka muslimiintu ma aha sida haweenka gaalada oo kale gaaladuna diinteenna ma aqoonsana iyo waxa kitaabkeena quraanka ku dhigan iyo wuxuu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam haweenka muslimiinta ka yiri marka yayin idin luminin waxay gaaladu leeyihiin